الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، وسؤال qof kastoo muslim isweydiin karo oo dhulkan jooga, sidee bay u suurto gelaysaa inuu meeshanna joogo diintiisana u ilaashado? qof kasta oo dhul uu gariib ku yahay taga, stranger ah, waxa hubaala in mashaakil tiro badani oo nololeed ka hor imanayaan. mashaakilku wuu sii adag yahay marka aad timaaddo ummad dhisan oo hadday tahay mabaadi'deedoo dhan haysata. innagu waxaynu u nimi halkan inaynu su'aalo runtii isweydiinaba habboon ku saabsan, waxaynu u nimi inaynu wax ku beddelanno, mise waxaynu u nimi inaynu wax kororhsanno? inaynu wax ku beddelannaa dee waa fududahay. qofku hadduu rabo afkiisa, dhaqankiisa, diintiisa waxaba inuu dhiibo, beddelkana wixii uu helayo uu qaato, waa war la garto. mid kalena waxa weeyaan waxaagiina inaad haysato waxna ku darsatid, adigoo waxaagii haysta inaad wax kororhsatid. bulshooyinka iyo qofka, fardiga iyo mujtamaca, haddii qofku waxa uu aaminsan yahay iyo culture-ku wato iyo dhaqanka iyo afka iyo ka bulshadu iswaafaqsan yahay, wuxuu dareemaa raynrayn iyo naxariis iyo deganaanshiyo. mashaakilku way ka yaraadaan. walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa: man asbaxa minkum aaminan fii sirbih mucaafan fii jasadih cindahu quutu yowmih fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha. qofkii ka soo dhex toosa ama kuwaa bariista fii sirbih, ay fii mujtamaci, fii ahli, fii qowmi, dadkiisa qofkii kuwaa bariista isagoo nabad qaba, caafimaad qaba, waxuu cuno haystaa, kaa adduunkao dhan baa ku soo ururay. yacni qofkani wuxuu helay alamni nafsi walamni alcaqadi walamni asixi walamni alghadaa'i. yacni wuxuu u baahnaa ee noloshu ay u baahnayd buu hayaa. waxaana iswaafaqsan bulshadu u yimi ama bulshadu ka tirsan yahay, waxay aaminsan tahay iyo wuxuu aaminsan yahay baa iswaafaqsan. haddii qofku uu yimaado meel aanu dhaqanka, afka, culture-ka, diinta la wadaagin, waxaa adkaata siduu isu adjust gareeyo. waxaa adkaata wixiisiina siduu u haysto waxna u kororhsado. waxaa fududaata inuu milmo, dawabaan uu ku dhaco, ou dadka ka mid noqda fudud. marka ay dhacdo markaa in bulshadu waxay rumaysan tahay iyo waxa dhaqan u ah iyo nidaamkeedu iyo adigu wixii aad rumaysnayd ama diin u haysatay ama dhaqanku u ahaa iska hor yimaadaan, waa markaa markuu qofku dareemo algurba, waa markuu strangenimada dareemo, inuu stranger yahay, waa markuu dareemo challenge inuu ka soo horjeedo. waayo bulsho kastoo meel ku dhaqan waxa la yaqaanaa waxay ilaalisaa identity ay bulshadu leedahay, waxaana ku ilaalisaa can طariiqi alcilmi waliclaami walqanuun. wasaaradda waxbarashadu waxay ilaalisaa bulshadan inay isku darto oo ay siiso identitygii bulshadu lahaa qofkan kusoo biiray inay siiso. iclaamkuna waa sidoo kale. midiyu
waxa uu sheegaya iyo wuxuu ka warramayo iyo waa dhaqan iyo culture iyo hidde iyo af ay dadkani leeyihin iyo taariikhdoodii. intaa waxa dheer haddii ay intaasi ku anfici weydo systemkaad ku qasbantay, nidaamka guud, alqaanuun, system baa ku qasbaya inaad systemka raacdo. su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay meesha kaa gadisan sidee baad diin ugu dhexaysan kartaa? marka aad meel kula nooca joogtid, majhuudka ama effortka iyo kostkay kugu qaadanaysa inaad waxaaga haysataa waa wax fudud, waayo bulshada aad la nooshoo dhan baa dhan u wada socotaa. saa daraaddeed afkaa lumi maayo, dhaqankaa lumi maayo, diinkaa lumi maayo. waxoogaa un adigu isilaaliso midhmidhka qaldan wixiisa inaad ka tagto ayuunbaad u baahan tahay, laakiin systemka guud wixii aad rumaysnayd buu wadaa. marka inaad diintaada ilaashato, ilmahaaga ilaashatid, dhaqankaaga ilaashatid, awoodda aad ku bixinaysa iyo hantida aad ku bixinaysa waa wax yar. markaad se timaadid meel aad intiiba kaga gedisan tahay, waxay u baahan tahay wakti ka badan iyo hanti ka badan iyo effort ka badan iyo caqli ka badan aad ku adeegsato si aad waxaagii hore u ilaashato, u suurtoobi karto inaad waxna kororsato. sideedabana ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya wain tutic akthara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah. dadka dhulka ku nool intooda badan haddaad aqbasho yudiluuka can sabiili illah baa ilaahay tilmaamaya, jidkay kaa luminayaan. haddaba qofka halkan yimi waxaa la yidhaahdaa laba option ama laba doorasho qura, laba khiyaaro keliyuu haystaa. khiyaar waa inuu u diyaar garoobo sidii uu diintiisana u xejisan lahaa iyo wixiisa waxna u kororsan lahaa. hadduu arkayo taasi inaanay suurtagal ahayn, khiyaar labaad ma jiro ee waa inuu meeluu wixiisa ku haysan kara tagaa. halgeebana tirada halkaa dhib baa ka jirte, dunida gebigeeduba waa challenge intaad nooshahay, waa alibtilaa. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. dunida waxaad u joogtaa in lagu imtixaamo, laakiin hadday kugu xidhan tahay markaa imtixaanka nooca aad challenge garaynayso, challengeka aad rabto inaad qaadato, kanna waad qaadan kartaa challengeka aad jooga haddaad ka bixi karto. haddii aanad kan awoodi karin waa inaad qaadataa challengekii adan walba ka soo carartay oo nabad iyo dhaqaaliya cunno ku saabsisanaa, kaas sidii aad u manage garayn lahayd waa inaad waajahda. laakiin meel ka dhaxaysa ma jirto labadaa, wixii ka dhaxeeya waa dhibasha uun. maxaa loo baahan yahay markaa inaynu haysanno teeni? ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa qisas tiro badan oo ku saabsan bulshooyin dunidan soo maray iyo siday u noolaayeen. bulshooyinkaa ilaahay ka warramaya qur-aanka qisaskooda ku soo naqliyey, qaar gaalaah iyo qaar muslimaba way lahaayeen. ummadaha ugu tirada badan leh qur-aanku uu ka warramo waxaa ka mid a dadka yahuudda la yidhaahdo. yahuudi waa bulsho taariikh dheer leh, waa dad xun iyo dad wanaagsanba lahaa. dad wanaagsan oo badan bay lahaayeen saa qur-aanku ka warramayo, bale ambiye badan bay lahaayeen, nebiyo, nebi yacquub, nebi yuusuf, nebi sulaymaan, nebi huud, nebi muuse. ambiyadan qur-aanka warramayo o dhami de waa familiga, waa bulshadaasi ka tirsanaya. dad wanaagsan way lahaayeen. aimatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun wajacalnaa minhum aima. ilaahay wuxuu leeya iyaga waxaanu ka yeelay aimo aayaadkayaga, aimo sabray oo aayaadkayaga yaqiinsaday oo dadka qudwa u noqday, tusaale. dhanka kalena kuwa xun bay lahaayeen. ilaahay markaa qur-aanka wuxuu inooga warramayaa bulshada reer banu israa'iil ay dhaho qayb mar ka mida taariikhdoodii
ilahi wuxu uhi waqaطacnaahum fi lardi umama waanu googoyno dhulkaanu ku saydhinay baa ilahay yidhi qaطacnaahum fi lardi umaman minhum الصaalixuun وminhum duna dalik wbalownaahum bاlxasanaati wالsayi'aati lacalahum yarjicuun dad wanaagsanna way lahaayeen baa ilaahay yidhi dad xunna way lahaayeen waana la googooyey waa itixaamay baa ilaahay leeyo xasanaad iyo sayi'aadba wanaag iyo xumooy samaba waa lagu itixaamay lacalahum yarjicuun maxaa xaalkoodii noqday markaa waxaa qisaskaa laynoogaga warramayaa inaynan qaar ka midi ficladay sameeyeen inaynan samaynin ilahay wuxuu leeyahy markaa fakhalafa min bacdihim khalfun wariثu lkitaab kuwaa waxa gadaal maray koox kitaabka dhaxashay baa ilahay yidhi wariثu alkitaaba kitaabka way dhaxleen ya'khuduuna carada hada aladna waxay qaadanayaan baa ilahay yidhi subxaanaه wa tacaala noloshan gaaban wixii ka soo gaadha waa iska qaadanayaan xalaal iyo xaaraan iyagoo aan u eegin oo wayaquuluuna waxay odhanayaan sayukfaru lana waa naloo dembi dhaafi doonaa wain yaatihim caradun miluh mar labaad haddii kii oo kale ku soo baxana ya'khuduuh baa ilahay yidhi waa qaadanayaan ilahay qoladan wuxuu ku tilmaamaya dhowr sifo kow kitaabka way dhaxleen bini aadamku wuxuu dhididkiisa iyo xooggiisa ku baxsado iyo wuxuu ku helaa agtiisa way ku kala fudud yihiin bini aadamku haddii uu maalan ilmaha yar haddii xoola looga dhinto inta badan waxa dhacda inay maxay ku cayaaraan waayo umay dhididin iyagu laakiin qofku xoolaha uu shaqayste ku dhidid ee xoog iyo naftiisa ku bixiyo wuu la jeclaabayo way adagtahay inay ka baxdo noloshoo dhan baa sidaasiya diinta dadka u dhintay ee naf iyo maalba soo siistay ee waxay u hijrooday saxaabadii nebiga iyo dadkani waa noloshooda dhan bay siisteen sawgeed way ku adkaayeen laakiin dadka dhaxalka u helay sideenoo kale meelun baynu iskaga dhalanay dad muslimiini joogaan islaamkun baynu aabbayaasha iyo awowyadeen allahu naxariiste ka dhaxalay wax kasta oo inagu joogay ma jirin adnaa majhuud maynan gelinin qoladan waxaa lagu tilmaamay iyaguna inay kituubka dhaxleen dhaxal bay ku heleen wariثu lkitaab laakiin dhaqankoodii maxaa ilaahay ku tilmaamay ilahay wuxuu yidhi waxay doonaan inta iska sameeyaanba waxay leeyihin ilahay waa gafuur raxiim sayukfaru lana waa noo dembi dhaafi doonaa bini aadamku waa dhacdaa inuu gafo ilahayna waa gafuur raxiim hadduu ka soo noqdo toobad keeno jidka saxa qaada ilahay dembigiisa ugu dhaafaa laakiin qoladani caadadoodu waa maxay waa iska dhumbanayaan marka la war waa sideena insha allah ilahay baa noo dembi dhaafa bay leeyihin ilahay baa noo dembi dhaafay ma berita hadday tiitimaadana waa la wadayaa dadminis dembiga waa la wadayaa rajada iyo amalka ah ilaahay baa dembiga dhaafi doonana waa la hayaabaa ilaahay leeyihi qoladan ilaahay wuxuu ku yidhi alam yu'khad calayhim miithaaqu lkitaabi an laa yaquluu cala allahi ila alxaq wadarasuu ma fiih waddaaru alaakhiratu khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun war kuwan miyaan ilaahay ballan ka qaadin baa alla leeyahy subxaana wa tacaala inaana ilaahay been ka sheegin oo kitaabkan inay daraaseeyaan iyo waxa ku jira war daarta aakhira u faa'iido badan baa ilaahay leeyahy u khayr badan dadkii ilaahay ka cabsanaya war miyaanay caqli lahayn baa ilaahay yidhi afalaa tacqiluun miyaan garashadu shaqaynin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala idan gruub kuwaasaa lagu tilmaamay inay noqdeen qaar kalena waxaa la tilmaamaya wاladiina yumasikuuna bاlkitaab وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين kuwa kitaabka qabsada baa ilaahay leeyahy masaka oo bitadciifiya baa la isticmaalay luqada carabeed yani waa waxaad qabqabanayso aad xejinayso masaka uu qabtay wey lakin masaka waa والذين يمسكون بالكتاب baa ilahay kuwa kitaabka qabsanaya xejinaya oo وأقاموا الصلاة salaada oogaya إنا لا نضيع أجر المصلحين baa ilahay ma luminayna baa ilaahay leeyahy kuwa samaha sabaynaya ajarkooda lumi maayo idan qisadan ilaahay wuxuu inoogu sheegay reer banu israa'iil la googooyey sida aynu u kala firidhnay loo kala firdhiyey inay dad saalixa iyo dad xunba lahaayeen waxaa la sheegay in imtixaanaad uu soo maray balownahum bilxasanaati wasayi'aat lacallahum yarjicuun
laakiin waxaa la tilmaamay gruubkaasi gruub inuu ka dambeeyey iyagu intay wax walba iska dhumbadaan diintoodii aan xejisanin ee amalka ah in loo dembi dhaafi doono un iska haystaa waxay doonaanna sameeyaan, iyo koox kaloo ah kuwo kitaabkoodii intay qabsadeen xejistay oo salaadoodii oogay oo ilaahay leeyahay kuwa wanaagsanna ajarkooda lumin mayno. idan waa labada wado qofka gariibka midunbu ku biiraya. bulsho kaa badan markaad adigoo yar la joogto labadaa wado midunbaad qaadaysaa. su-aashu waxa weeyaan haddaba waa maxay wasaa'ilka inugu xejin kara diinteenna? sidaynu u xejin karnaa? waxaynu u baahannahay inaynu in yar dib ugu noqonno tajribadii saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyullaahi moxamed. wadcigaynu ku loon lahay mid ka adag bay ku noolaayeen, mid ka adag. nebi maxamed isagoo keligiiya lasoo diray calayhi salaatu wasalaam, qof iyo laba iyo saddex baa rumeeyey. dhul gaaleedna way deganaayeen. meeshay deganaayeen markii waa dhul gaaleed, madiinana waa dhul gaaleed. marka gaalaa degan, culture kalaa yaalla, luqadooda isku mid bay ahayd, laakiin caqiide iyo dhaqan ka gedisan kii jaahiliga bay haysteen. sidee bay u dhacday inay saxaabada iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam ka hor tagaan oo ay diintoodii u xejistaan? waxaan rabaa inaan in yar tilmaamno 4 suuradood ee qur-aanka ugu soo hordegay. qur-aanka culamadu waxay isku waafaqsayeen 4 suuradood ba ugu soo hordegay ayay inta badan tilmaamaan. waliba 4 suuradood oo wada dhan maaha, mid walba qeybteeda hore. waa suurat alcalaq. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. suuradaas qeybtaa hore. waxaa kaloo iyana soo degtay yaa ayuha almudathiru qum faandir warabaka fakabir wathiyaabaka fatahir warujsa fahjur walaa tamnun tastakthir walirabbika fasbir. aayaadkaasi horeeya. waxaa kaloo soo degtay yaa ayuha almuzamilu qum illeyla ila qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi waratil alqur'aana tartiila إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إلى آيات كسيحية. وحكى سودجي نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون يا آياتك. هاي علماء إلى هذان وحيجي كواد النبي محمد كسودجي عليه الصلاة والسلام وحاقود كمركو كتشري. laakiin maadaama uu nolol adag waajihi doono waxay dhahdaan qaabka wax la isugu bara tacliimka si qabow baa qofka wax loo baraa. laakiin nebi maxamed markii lagu bilaabayey qaab adag baa loogu bilaabay. malikul jibriil baa intuu qabtoo gelgelay ayuu iqra ku yidhi. waxay culammadu yidhahdaan waxaa la taabsiinayey qimatu lintibaahi wasaxwa. waxaa soo socdaa wax fudud inaanu ahayna inuu xoog u soo jeesto. dabeetana qur-aankan baa ku soo degay. qur-aankani muxuu ka waramayaa? waxay yidhahdaan aayaadkani waxay sheegayaan haddii lagu dhaqmo waa waxa sababi kara inay cidi mabaadi'deeda haysato ku dheganaato diinta inaad xejisato. aayaadkani dhowr shay bay ka waramayaan. midi waxa weeyaan kow waxay ka waramayaan qadiyat alcilm, iyadoo laga yaabo carab inay jahli ku sugnayd, aqoon inaan waxba ka jirin, oo ay noloshoodu cayn ka ahayd, cilmiguna inaanu qiimo badan agtooda ku lahayn. laakiin wixii qur-aanka ugu soo hordegay masalada qalamka, masalada kitaabada iyo akhriska iyo cilmiga iyo ku saabsan bu aha. 2 suuradood markaa nuun walqalami wamaa yasturuun waxaa lagaga waramayaa qalinka iyo waxa la qoro. iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam. qadiyat alcilmi walqalami wasutuur baa laga waramay. waxay culammadu yidhahdaan kow aljaahil waxba iskama difaaci karo. hadii la rabo diintan inaynu xejisano
waynaynu baranaa. qadiyat alcilm, bini aadamku waxa koowaad ee isku daafacaa waa masalat alcilm. waxaanad cilmi u lahayn ma difaaci kartid, waxaanad garanaynin ma difaaci kartid, waxaanad garanaynin shubahaadkaa kugu badanaya, waa lagu shaki gelinaya. waxaanad garanaynin asilada dadka kama jawaabi kartid, waxaanad garanaynin ma garan kartid maxaad u haysataa. idan ula shay ama shayga ugu horeeya aynu u baahanay haddii aynu rabno inaynu diintan haysanaa waa inaynu garannaa, waa inaynu barannaa, waa inaynu aqoon u yeelannaa. caqiidadeeda iyo waxay sheegayso waa inaynu garannaa. reasoninkeeda iyo common sensekeeda iyo waxa ka dambeeya waa inaynu garannaa. waa inay caqligeennu wuxuu qaadan kara noqotaa, waa aynu si fiican u fahmno. kaasi waa mid. ka labaad ee aayaadkani ka warramayaan waxa weeyaan, waxay idhahdaan khayru difaac, khayru wasiila lidifaac huwa alhujuum bay idhahdaan. wasiilada ugu fiican ee difaac loo gala waa inaad hujuum ama diyaar u tahay inaad wax iska dhicin kartid. haddii adigu un laguu yeedho mabaadida kalun lagugu wado waad lumaysaa. laakiin ilahay muxuu nabi maxamed ku yidhi yaa ayuha almudathiru qum faandir. kan isdadayow baa la yidhi kac oo dig. waxaa ka horreysay oo soo degtay binu iqra iyo riyooyinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam 6 bilood ku soconayay. haddana waxaa lagu bilaabay inuu kaco oo digo. idan inaynu dacwa samaynaa, inaynu dadka kale diinta ugu yeedhnaa waa waxa keensanaya teenna inaynu xejin karno. waxaa lagu yidhi markaa qum faandir warabbaka fakabir, rabbigaana weyne, wa hiyaabaka fatahir, maryahaaga iyo qulubtaada iyo kor iyo hoosba isdaahir yeel, warujsa fahjur, xumaha ka guur ka hijrood, walaa tamnun tastakthir, ikhlaas la kaalay, waxaad bixinaysaa hamana sheegan. waxaa lagu yidhi markaa walirabbika fasbir, wadadaa inaad qaadaana mashaakil iyo challenge cusub weeyaan, iyadana sabir baa la yidhi. marka waxaan leenahay qadiyadda koowaad waa qadiyat alcilm. haddaynu rabno inaynu diintan ku sugnaanoo xejinno waa inaynu barannaa, garannaa, si fiican u fahmnaa, waa yeel iyo wiil yarba. keeda labaadna waa maxay? waa inaynu iyada u shaqaynaa, dadka gaadhsiinaa, innaguna isgaadhsiinaa, oo ah inaynu isku tahirno kor iyo hoosba, xumahana ka hijroonno ka guuro. waxaasina waa inay naga hadaan ilaahay dartii iyo ikhlaas. challenge-ka inaga hor iman doonana waa inaynu u sabirnaa. kaasaa la fara. bini aadamku hadduu shay culus qaado wuu daalaa. hadduu challenge-ku ku adkaado wuu isdhiibaa. laakiin qofka muslimkaa lama rabo inuu isdhiibo. muxuu samaynayaa? waa xidhiidhkaad ilaahay la leedahay adkee baa lagu yidhi, haddaad rabto inaad ilaahay kaalmadiisa iyo gargaarkiisana hesho. hadday dhibo ku qabsato maxaad ka fekertaa? qofka bini aadamka markay dhibo qabsato, maalan economical problem baa ku qabsaday, dhaqaale, dhib dhaqaale, markiiba waxaad fekeraysaa wartalow xaggaad ula kacda. waxaa kugu soo xaadiraya ciddii qaraaba iyo tolya asxaaba ahaydeen ee waxhaysataad isleeday waxbay kaa tari karaysaabaa markaaba madaxaaga ku soo xaadiraya. marka waxaad markiiba tijaabinaysaa bal intaasi culayska inay kaa qaado inaad connection la samayso, xidhiidh inaad kuwaa la samayso. ilahi wuxuu leeyahay haddii diintan culays aad dareentaan aniga xidhiidha la sameeye. saa daraaddeed baa nebi maxamed waxaa lagu yidhi iyo saxaabadii yaa ayuha almuzamilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi waratil ilqur'aana tartiila. habeenkii kac baa la yidhi, nuskii ama intiisa badan ama in yar nuska ka yare, habeenkii kac, ilaahay xidhiidhkaad la leeday xooji, waayo innaa sanulqi calayka qawlan thaqiila baa ilah yidhi. war culus baan kuu dhiibayaa baa ilah yidhi. diinkan inaad xambaartaa waa culays baa ilaahay leeyahy. haddaba culayskaasi si u fududaado ilaahay kaalmayso, ilaahay cibaadadiisa iyo ku-xidhnaantiisa iyo baryadiisa kaa kaalmaysa baa ilaahay leeyahy. ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu waطan wa aqwamu qiila.
maalin oo dhanna waina laka fi nahaari sabxan طawiila tasbiixso oo dikrigaaga badi watabatal ilayhi tabtiila waka suuradoo dhami markaa waxay tilmaamaysaa qaybtan aynu tilmaamaynaa haddaad aqoon diintiina u yeelataan oo ku qanacdaan isla markaana aad dacwa samaysaan oo dadka ugu yeedhaan idinkuna ay isdaahirisaan sabir baa laydinka baahan yahay haddii challenge-ku xoogoobo mar kasta ilaahay ku xidhnow baa layidhi biyadihi malakuutu kulli shay isagaa gacantiisa wax waliba ku jiraan allaha wax waliba gacantiisa ku jiraan ku xidhan baa la yidhi waxaan leenahay marka afarta suuradooda hore intaasay ka warramayaan saxaabadii si fiican afartan u fahmay ilaahay muxuu ku sifeeyey min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu allaha calayhi faminhum man qadaa naxbah ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مؤمنينta waxaa ka mida baa ilahay yidhi rag ka run sheegay wixii ay ilaahay ballan la galeen qaarna waa ku dhinteen iyagoo diintoodii haystay dhinteen qaarna waa sugayaan wax bedela kamay samayn diintoodii baa ilahay leeyahay